asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda qaaliga barnaamijyadeennii aqoon wadaagaad ku ogeydaan barnaamij qoraalaha hadda kadib qoraalkii waanu ka bedelay waxaananu bedelaynaa haddii la yidhahdo qaab presentation ama powerpoint ku bixi doona markaas waxaan caawa soo qaadanay afarta kitaab ee samaawiga oo alla soo dejiyey ciddii kusoo dejiyey magacantooda ayaan caawa halkan ku baranay haddii la yidhahdo waa barnaamij aad iyo aad u kooban oo daqiiqad ama laba daqiiqadood ka badnayn balse faa'iidadiisa leh markaas waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysanaysaan dhammaantiin asxaabteeda qaaliga marka koowaad afarta kitaab ee samaawiga ah ee nebiga iyo nebiyada oo alla kusoo dejiyey ayaan magac uga dhigay barnaamijkan markaas kitaabka koowaad oo alla soo dejiyey waxay ahayd maxaa la yidhahdaa zabuur ayaa la yidhahdaa waxaana lagu soo dejiyey nebi daawud caleyhi salaatu wasalaam markaas inaad wada garanaysaan baan rajeynaya waana markaas waxaan is leeyahay waa xasuusin ciddii aan maxaa la aqoonna inay ka kororsato darteed ayaan halkan ugu soo daray markaas zabuur waxaa lagu soo dejiyey nebi daawud caleyhi salaam kitaabka labaad waxaa la yidhaahdaa towraat waa kitaabkii lagu soo dejiyey nebi muuse calayhi salaam waa kitaabkan towraadda dadkan maxaa la dhahdaa imika ahaan waxaa la dhahdaa asal ahaan waxaa haysta imika ahaan dadkan maxaa la dhahdaa diinta yahuudda haysta maxaa la dhahdaa israel iyo dhulkaas ku nool iyo wadamada adduunka qaarkood iyo aaminsan marka waana kitaab samaawi oo alla soo dejiyey oo nebi muuse kusoo dejiyey marka towraat ayaa la yidhahdaa kitaabkan kale waa kitaabka injiishana sida caadiga waxaa lagu soo dejiyey nebi ciise calayhi salaam markaas waa kitaabka qowlyahan masiixidu ay leeyihiin waan rumaysanahay inkastay wax badan ay ka bedeleen oo sidii saxda ayna u aaminsaneen haddana waa isla kitaabka injiisha si kale haddii loo dhigo waa kuwan bibalka yidhaahdo markaas waxaa lagu soo dejiyey nebi ciise calayhi salaatu wasalaam waa kitaab samaawi oo kamid a afarta kitaab ee alla lagu soo dejiyey kitaabka afraad waa furqaan waxaa lagu soo dejiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam haddii si kale loo dhigo furqaantu waa kitaabka qur-aanka kariimka markaas waxaa la dhahdaa waxaan rajeynaya inaad ka bogateen afarta kitaab iyo nebiyadii caleyhi salaatu wasalaam naxariista nabadgelyo korkooda ahaatay lagu soo dejiyey inaad ka bogateen ayaan rajeynaya barnaamijku sidan iyuu soconaya hadda kadib waxaan rajeynaya inaad la soconaysaan dhammaantiin asxaabteeda qaali aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin